Ardadan ka qalin jabisay jaamacadda Hiiraan oo ah dafcadii ugu horeysay ayaa tiradoodu gaaraysa 52 arday waxayna ka qalin jabiyeen 3 kuliyadood oo kala ah computer science, shareeca law iyo nursing. Xafladii shahaadooyinka lagu guddoonsiinayay oo lagu qabtay Baar Xasan Dhiif ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ka soo qayb galay macallimiin, waalidiin, madaxda ugu sareysa maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada AMISOM. ugu horeyn waxa madashaasi ka hadlay maamulaha guud ee jaamacadda Hiiraan Professor Ibrahim Dhaqane Cali oo ka warbixiyay marxaladii ay soo martay jaamacadda muddadii ay shaqeynaysay. haddii aan wax yar ka taabto jaamacaddan safarkii dheereed iyo halgankii loo soo galay waxaa bilaabay niman gartay in gobolkaani markii ay burburtay dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay ka jireen 6 iskoolaad oo dugsi sare ay ka jireen gobolkii ardaydii ka soo baxday dugsiga sare ay meel kale u aadaan waxaa isugu tegay gobolka Ohio magaalada Columbus dad dhalinyaro ah oo dad mutacallimiin ah oo gobolka soo jeeda oo 30 nin ah ayaa isugu tegay waxay goosteen in ardaydaas ay helaan jaamacad. sidoo kale waxaa xafladaasi ka hadlay Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif oo ka mid ah doobabka dhaqanka Soomaaliyeed waxaana uu mahad celiyay aasaasiyaashii jaamacadda Hiiraan iyo macallimiintii u soo dhabar adeegay ee heerkan soo gaarsiiyay. waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo aasaasiyaashii jaamacadda dadkii boorka u ahaa oo qurbo joogta ahaa meel kasta ay joogaan dadkaas oo la yimid fikirka ah jaamacadda Hiiraan inay hirgasho santo. waxaan kaloo u mahad celinayaa aqoonyahankii gudaha joogay oo maanta soo saaray wanaaggan ka muuqanaya xaafadatan. ugu dambeyn waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Afrax isagoo sheegay in shaqo abuur loo sameyn doono ardada ka qalin jabisay jaamacadda Hiiraan. waxaa maanta waxaa loo baahan yahay shaqo wadankeena dhibaatada uu ku jiro waa ogsoontiin inkastoo hadda soo kabanayo munaasabadan darteed marka iyo halkaa oo ah waxbaan soo bartay shaqo ayaan u baahanahay ayaan rabaa waxaan inaan ka sheego dhalinyaradaasi soo qalin jabisay fursado shaqo oo ugu horreeyay ayaa siinaysa annaga oo dowladii gobolka Hiiraan. ardadan ayaa noqonaysa dafcadii ugu horeysay ee ka qalin jabisay jaamacadda Hiiraan tan iyo markii dhidibada loo taagay sanadii 2010. Cabdiweli Xuseen Tawakal, TV-ga Universal, Beledweyne.